hadda barbarkayga waxa fadhiya aabbaha dhalay Niciime Axmed Qorane oo hadda muddo xabsiga ku xidhan aabbaha dhalay Niciime maanta waxa uu la kulmay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi bal madaxweynaha iyo kulankiina nooga war بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأنه لكلنا مدحوينها مانتا markaas madaxweynuhu isaga noo yeeray aniga iyo nin oday ah la yiraahdo Cabdullaahi Kaahin oo mar hore inanta xaaladeeda kala hadlay isaga noo yeeray nin wasiiradu noo soo diray waan la kulanay marka wuxuu noo ballan qaaday inuu inantii si dhaqso ah u sii deynayo muddo nooma sheegin laakiin wuxuu yiri waa si dhaqso ah baan u sii deynayaa ma bari bay noqon masaa dambe noqon ma garan karayo laakiin ballankaas uu noo qaaday madaxweynuhu bal kullay deed inantaadii iyo xaaladeeda warku kuma seegana bal hadda ka waraneen Niciime Qoran wallahi Niciime xaaladeedu horta imika waxay ku jirtaa jeelka Gabiiley waayo halkan Hargeysa muddadii maalintii la xukumayba waa laga qaaday Gabiiley baa la geeyay ficlan waa iska xanuunsatay maalmihii hore markaa intii ay ku jirtay saldhigga iyo CID-da iyo intay imika joogtay xabsiga aad bay u kala duwan tahay noloshooda iyo dhaqankuba aad buu kala duwan yahay waxay noo sheegtay in halkaas aad u fiican tahay saacadii aanu doonaba waa u tagi karaan nooma diidaan xataa maalmaha aan siyaarada ahayn maalmo cayiman baa jiro oo sida Arbacada iyo Khamiista oo kale ayaa malaha dadka loo ogol yahay inay siyaarahan dadkooda ugu tagaan laakiin wallahi anagu saacadii aanu doonaba way noo tagaan waa noo favor sameeyeen qolada asluubtu wax dhiba markaa imika way yar xanuunsatay oo xanuun baa jira marka xanuunka waa kala hadalay marka waan iska fiicantay imika ayaamaha kan aad iyo maasata daawadayaal kaasi waxa uu ahaa Axmed Qorane oo aabbaha dhalay Niciime Qorane oo abwaanada yara runtii dhinaca qoraalka iyo arimahana dabcan samaysa oo hadda muddo xidhan waxana xukuumaddu ay ku eedeysay in arimaha dhinaca Soomaaliya ay dabcan tagto oo ay arimahaasi aad u xoojiso Batri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa